waxaa dalka ka bilowday dhaqdhaqaaqa ololaha kambeynka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka federaalka meel wanaagsan oo gabagaba ah ay marayso. musharaxiin badan ayaa isu soo taagay xilka madaxweyne kuwaasi oo u badan wajiyo aan bulshada ku cusbayn sida madaxweynayaal hore iyo siyaasiyiin qaarkood xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. hase yeeshee waxaa soo baxaya warar sheegaya in xilka madaxweyne uu isu soo sharaxayo aqoon-yahan siyaasi saameyn iyo sumcad fiican ku dhex leh bulshada injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo la rumaysan yahay haddii uu xilka isu soo sharaxo inuu si fudud ugu soo dhexbixi karo musharaxiintaasi. xildheerayaasha siyaasadeed ayaa waxa ay qabaan haddii uu wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdullaahi oo 30 sano la soo dhaafay ka shaqeynayay howlaha samafalka haddii uu xilkaasi isu soo sharaxo uu noqon karo madaxweynaha xafiiska ka bedelaya madaxweyne Farmaajo. waxa uu kamid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo mar warbaahinta ay hadalhaysay in Farmaajo uu soo xushay injineer Cabdullaahi Cali Xasan ra'iisul wasaare. hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in uu iska diiday dhowr dalab oo la hordhigay ka hor inta aan loo magacaabin xilkaasi. dadka yaqaana ayaa tilmaamay in uu yahay siyaasi go'aan adag oo aan yeelin waxa loo yeeriyo, taasi oo keentay in madaxtooyada qof kale u soo xushaan xilka ra'iisul wasaaraha.